Assalaamu calaykum waraxmatullah. Barnaamijka maanta ayaa waxaan ku soo qaadan qaababka ama tekniikiyada wax loo xifdiyo iyo sida dadka ka qayb gala tartanada xifdiska ay awood ugu yeeshaan in muddo aad u yar ay u xifdiyaan waxa la soo hordhigo. Dadkaas wax xifdiska ku caanbaxay ayaa waxaa ka mid ah Alex Mullen oo hal saac gudaheed ku xifdiyey 3238 lambar oo awood u yeeshay inuu akhriyo sida ay isugu xigeen. iyo ninkan Jarmalka ah oo la dhaho Mark Lang oo ciyaara chesska ama shatranjiga laakiin si cajiib ah u ciyaara. Markuu ciyaarayo ma fiiriyo chesska qofka kale oo isaga oo ka sii jeeda ayuu la ciyaaraa. Sanadii 2011 ayaa waxa uu la ciyaaray 46 qof isku mar oo kombiyuutar ayaa waxa uu u sheegay qofka uu la ciyaarayo tallaabadiisii u dambeysay kaliya. Meelaha kale oo ay joogaan waa inuu maskaxdiisa ku xifdiyaa. 46 qof ee la ciyaarayay meelaha ay degeen waa inuu maskaxda ku hayaa si ay ugu fududaato inuu ka adkaado. Ninkan ayaa waxa uu ka guuleystay 44 qof oo ka mid ah dadkaas. Haddaba dadkan si ay ugu fududaato xifdis badan ayaa waxa ay ku tababartaan tekniikyo u fududeeya xifdinta. Qayb ka mid ah ayaan ka hadlayaa balse marka hore waa inaan caddeeyaa waxyaalo maskaxda u sahla inay wax xifdiso. Maskaxdeena marka la fiiriyo waxa aad ula fudud inay xasuusato sawirrada oo tijaabo lagu sameeyay jaamacadda MIT ayaa arrintan caddaysay. Dadkii tijaabada lagu sameeyay ayaa waxa la soo hordhigay sawir uu qofku fiirinayo 3 sakan kaliya markaa kadibna sawir cusub uu imaanayo. Waxaa dadkaas la tusay 3000 oo sawir oo ay daawanayeen muddo 2 saac iyo bar ah. Markaa kadib ayaa waxa lagu imtixaanay in la soo hordhigo sawir ay horay u arkeen iyo mid aysan arag. Waxaana laga rabay inay sheegaan sawirka ay horay u soo arkeen. Tijaabadan ayaa waxaa ka soo baxay in si sax ah dadku u sheegaan inta badan sawirradii ay horay u arkeen oo 92% wax ka badan ayay si sax ah u sheegayeen markii la isku celceliyo. Tijaabadan iyo kuwa la mid ah ayaa waxay caddaysay in maskaxda ay u fududahay xasuusta muuqaalada. Waa waxa keenay in qof aad horay u aragtay ay adag tahay inaad muuqaalkiisa ilowdid, laakiin ay dhici karto inaad si fudud magaciisa ku ilowdid. Arrin kale oo xasuusta fududaysa ayaa waxay tahay shaygu inuu ka duwan yahay waxyaalaha kale. Tusaale ahaan haddii lagu weydiiyo waa maxay bisha ugu fudud ee aad garan karto inta maalmood ay ka kooban tahay, waxa ay u badan tahay inaad tiraahdid bisha 2 ama Febraayo. Maadaama inta ay ku dhamaato ay ka duwan tahay bilaha kale oo inta badan 28 maalmood ay ka kooban tahay, 4 sanana mar ay 29 ku dhamaato. Halka bilaha kale ay adag tahay in la xasuusto inta ay ku dhamaadaan maadaama ay isku dhow yihiin oo 30 ama 31 ay ku dhamaadaan. Arrin kale oo tijaabo lagu soo helay ayaa ahayd in dad la soo hordhigay sawirka nin. Qaybtood ayaa waxaa loo sheegay in ninkaas magaciisu yahay Baker. Qaybtii kalena waxaa loo sheegay in ninkaas shaqadiisu ay tahay Baker oo ah dadka duba roodhiga iyo keega. Labada qolaba waxaa loo sheegay wax si isku mid ah loo qoro, marna magaciisu yahay Baker, marna shaqadiisu tahay Baker. Dhowr maalmood kadib ayaa dadkii la soo hordhigay sawirkii oo la weydiiyay ninkaas waxa uu ahaa. Dadkii loo sheegay shaqada ninka ayaa waxay awood u yeesheen inay xasuustaan shaqadiisu inay Baker ahayd ama roodhile, halka dadkii loo sheegay magaciisu inuu yahay Bakerna qayb badani ay ilaaween. Sawirka dadkaas la tusay isku mid ayuu ahaa, magaca iyo shaqaduna isku si ayay loo qorayay oo Baker iyo Baker ayay ahayd. Marka maxaa keenay in markii shaqada loo sheegay ay fududahay in la xasuusto, markii magac kaliya la sheegana ay u adag tahay xasuusitaankeedu? Arrintaas ayaa waxaa lagu fasiray in marka shaqada qofka la sheego ay maskaxdu isla xiriirinayso qofkaas iyo shaqada oo ay sawiranayso shaqadii uu qofkaasi samaynayo, halka marka magaca qofka kaliya la sheego maskaxdu aysan hayn wax kale ay ku xiriiriso. Haddaba tijaabooyinkaas ayaan waxaan ka ogaanay inaad wax xasuusatid ay fududaato markii uu sawir ama muuqaal yahay, ama markii uu ka duwan yahay waxyaalaha kale, amaba maskaxdu arrin ay horay u taqaanay ay la xiriirisay. Marka tekniikiyada wax loo xifdiyo ayaa waxa ay ka faa'iideystaan arrimahaas maskaxda u fududeeya inay wax xasuusato. Haddaan u soo gudbo qaababka wax loo xifdiyo ayaa ah kuwa aad u fara badan, laakiin waxaan maanta ka hadli doonaa 2 ka mid ah. Tan koowaad ayaa waxaa la dhahaa numeric peg system, waxayna u baahan tahay practice yar ah inuu qofku sameeyo. Systemkan ayaa nambaradii waxa loo bedelaa sawir ama muuqaal si ay maskaxdu ugu fududaato inay soo xasuusato. Marka 10ka nambar ee u horeeya ee 1 ilaa 10 aan ku xiriirino sawir. Nambar 1 ayaa waxaan ku xiriirinaynaa qalin rasaaska maadaama uu u eg yahay nambarka koowaad oo ay u fududahay maskaxdu inay sidaas u xasuusato. 1 marka waa qalin rasaaska. Lambar 2 ayaa waxaad ka dhigtaa shimbirtan surkeedu lambar 2 oo kale yahay, oo lambar 2 waxaad maskaxdaada ku sawirataa inay shimbirtaas tahay. Lambar 3 waxaad ka dhigtaa wadne dhinac u jeeda oo u eg inuu 3 oo kale yahay,
oo 3 waxaad u sawirataa wadnahaas dhinaca u yaal. Lambar 4 waxaan ku xiriirinaynaa kursi la rogay oo sawirkiisu u dhow yahay lambar 4. Marka 4 waa kursi hoos u jeeda oo sida 4 oo kale u sawiran. Lambar 5 waxaan ka dhigaynaa birtan jilaabta ah ee wax la suro oo waxa ay u muuqaal dhowdahay lambar 5. Marka 5 waa jilaabtaas. Lambar 6na waxa ay u egtahay firimbiga ama fooriga, marka waxaad u xasuusataa lambarka 6 inuu yahay firimbi. Lambar 7 ayaa waxay isu eg yihiin faaska, marka lambar 7 waxaad u sawirataa inuu faas yahay. maadaama ay faaska isu eg yihiinna waa ay fududahay inaad sidaa u soo xasuusatid. Aan u gudubno lambar 8 oo aad u xasuusan kartid sidii inay tahay waddo laami ah oo isku wareegta. Marka lambar 8 waxaad u xasuusataa sidii waddo laami ah oo 8 oo kala ah. Lambar 9 ayaa waxaad ka dhigi kartaa buufin xarig ku xiran yahay oo sawir ahaan u dhow lambar 9. 9 marka waa buufintaas xiran. Lambarka 10 ayaa waxaad ka dhigi kartaa fargeeto iyo saxan isdhinac yaala oo sawirkoodu u eg yahay lambarka 10. Marka hal mar aan dul maro sida la isugu xiriirinayay lambarada iyo sawirada. Lambar 1 waxa uu ahaa qalin rasaas. Lambar 2na waa shimbirta surkeedu 2 u ekaa. Lambar 3 waa wadnaha dhinaca u jeeda. Lambar 4 waa kursiga hoos loo jeediyay. Lambar 5 waa jilaabta. Lambar 6na waa firimbiga. Lambar 7na waa faaska. Lambar 8na waa laamiga 8 oo kala ah. Lambar 9na waa buufinta iyo xarigeedii. Iyo ugu dambeyn lambar 10 oo ah fargeetada iyo saxanka isdhinac yaal. Khasab maaha inaad sawiradaad kaliya isticmaashid, haddii uu jiro qaab kale oo aad u xasuusan kartid nambaradaas waa samayn kartaa. Waxaan nambarada sawirro ugu bedelnay ayaa ah in maskaxda u fududahay xasuusta sawirada. Hadda marka waxaan samaynaynaa tijaabo. Marka intaanan u gelin waa inaad isku daydaa inaad xasuusan kartid lambarada iyo sawirada xiriirka la leh. Haddaan marka ku weydiiyo lambar 6 maxaan u sawiranaynay? Haddaad xasuusatid waa firimbiga. Waa tahay lambar 7 muxuu ahaa? Waa faaska. Lambar 4na muxuu ahaa? Waa kursiga la qalibay. Lambar 8na waxa uu ahaa laamiga 8 u ekaa. Marka haddaad kulligood xasuusatid waxaan u gudbaynaa sida loo adeegsan karo in wax lagu xasuusto nambaradaas iyo sawiradooda. Tusaale ahaan waxaad ka soo qaadaa in loo diray supermarketka oo waxaad lana ka rabaa inaan keenno 10 shay ee soo socda: kafee, caano, saabuun, kalluun, yaanyo, hilib, biyo, buug, roodhi iyo baasto. Waxaana la ka rabaa inaan isku xiriirino 10 shay iyo sawiradii nambarada aan xasuusanay. Shayga koowaad oo nala ka rabo waa kafeega. Marka kafeega waxaan ku xiriirinaynaa lambar 1 oo ahaa qalin rasaaska. Marka aad wax isku xiriirinaysid waxa fiican inaad ka dhigtid waxyaab badan oo la buunbuuniyay si ay maskaxda ugu fududaato inay soo xasuusato. Marka waxaad sawirataa kafeegaas oo aad rabtay inaad sonkor ku walaaqdo, laakiin aad qaado weyday oo aad qalin rasaas ku ag yaalay soo qaadatay oo aad kafeegii ku walaaqday. Marka kafeegii iyo qalin rasaaskii sidaas ayaan isugu xiriirisay. Shayga labaad oo nala ka rabo waa caano. Caanaha waxaana la ka rabaa inaan ku xiriirino lambar 2 oo ahayd shimbirtu surkeedu 2 u ekaa. Waxaad sawirataa shimbirtaas iyadoo caano aad ka tagtay u soo gaatantay oo cabaysa. Waxaad sawirataa adoo markaa isweydiinaya shimbirtaasi caano jecel ah. Mindhaa midabkeeda waxaa cadaanka ka dhigay caano ayay ku qubaysataa. Shayga saddexaad ayaa waxa uu yahay saabuunta. Waxaan marka ku xiriirinaynaa lambar 3 oo ah wadnaha marka dhinac loo dhigo 3 u eg. Waxaad sawirataa wadnaha oo wasakh ah oo u baahan in la dhaqo, markaasna saabuun la soo qaatay oo la mariyay. Maskaxdaada ku sawiro wadna lagu dhaqaayo saabuun. Shayga afraad oo nala ka rabay ayaa waxa uu ahaa kalluun. Waxaan ku xiriirinaynaa kursiga markii hoos loo jeediyo 4 u eg. Waxaad sawirataa kalluun kursi ku fadhiya oo neecaw fiican ku dhacayso oo jawiga ku raaxaysanaya. Shayga shanaad oo nala ka rabay ayaa waxa uu ahaa yaanyada. Waxaan la xiriirinaynaa jilaabta nambar 5 u eg. Waxaad sawirataa inaad jilaab ku tuurtay badda oo meeshii kalluun ay soo qaban lahayd ay soo qabatay yaanyo badda hoosteeda ka baxda. Shayga 6aadna waxa uu ahaa hilibka. Waxaan ku xiriirinaynaa firimbiga oo lambar 6 u eg. Waxaad sawirataa nin boqor xabashi ah oo hilib ceerin cunaya oo markii uu rabo in hilibka loo keeno firimbigiisa ka dhawaajiya isla markiibana loo keenayo hilibkaas. Shayga 7aadna waxa uu ahaa caagad biyo ah. Waxaan ku xiriirinaynaa faaska oo lambar 7 u eg. Waxaad sawirataa meel aan biyo lahayn, laakiin markii faas la soo qaato oo dhulka lagu dhufto ay biyo soo burqanayaan. Faaskaas oo la dhaho faas biyoole. Shayga 8aad oo naloo diray ayaa waxa uu ahaa buug. Haddaba waxaan ku xiriirinaynaa lambar 8 oo ahaa laamiga 8 u ekaa.
waxaad sawirataa waddadaas laamiga ah oo ay marayaan buugaag luga leh oo waddadaas dhex soconaya, waddadaas oo loogu talagalay in buugaagta lugaha leh ay maraan. Shayga sagaalaad waxa uu ahaa roodhi. Waxaan ku xiriirinaynaa balluunkii ama buufintii nambar 9 oo ekayd. Waxaad sawirataa roodhi ku dhex jira buufinta oo aad ka dhex arki kartid muuqaalkiisa. Shayga u dambeeyana waxa uu ahaa baasto oo waxaan ku xiriirinaynaa fargeetada iyo saxanka oo lambar 10 ahaa. Waxaad sawirataa baasto saxanka ku jirta oo fargeetadii lagu cunayo. Waxaa dhici karta in marka u horeysa kugu adag tahay, laakiin markii la practice gareeyo waa ay fududaataa oo waqti badan kuguma qaadanayso sida la isugu xiriirinayo sawirada iyo waxyaalaha laga rabay. Bal marka aan fiirino inaad xasuusatid, muxuu ahaa shayga 8aad ee supermarket-kana loo ka diray? Marka u horeysa waa inaad xasuusataa lambar 8 muxuu ahaa sawirka lagu xiriirinayay. Waa laamiga 8 u ekaa. Intaa kadib ayaa waxaa xasuusanaysaa in shayga 8aad ee lagu diray uu ahaa buug, maadaama aad maskaxda gelisay buugaag luga leh oo waddadaas dhex mushaaxayay. Su'aal kale, muxuu ahaa shaygii 1aad ee lagu diray? Waxaa lagu bedelaa qalin rasaas. Markaa kadib ayaad xasuusan in shaygaasi ahaa kafee, maadaama aad maskaxda gelisay adoo qaado la'aan kugu dhacday oo qalin rasaaskii ku walaaqaya kafeega. Isku day inaad soo xasuusatid 10kii shay oo dhan. Tekniigan ayaa la sii ballaarin karaa oo laga dhigi karaa ilaa 20 iyo wax ka badan. Tusaale ahaan 11 ilaa 20 ayaa waxaa laga dhigi karaa isla 1 ilaa 10 oo lagu daray kaliya oliyo madow. Oo markaad rabtid inaad soo xasuusatid 11, waxaad ku xiriirinaysaa qalin rasaas iyo oliyo madow. Markaas ayaa waxaad ku lifaaqaysaa shaygii aad rabtid inaad xasuusatid. Tekniiga labaad oo aan si kooban u dul marayo ayaa waxaa la dhahaa memory palace ama method of loci. Waxaa la sameeyaa in meel aad taqaanid oo gurigaaga oo kala ah aad soo qaadatid oo aad u qaybisid meelo kala duwan. Waxyaalihii aad xifdinaysay aad sawiratid iyagoo meelahaas yaala. Tusaale ahaan gurigu hadduu kaabad leeyahay iyo albaabka iyo layrka iyo armaajada iyo haddii kuraas taalo iyo qolalka kala gedisan waxyaalaha yaal oo aad maskaxdaada ka garan kartid, ayaa waxaad ku xiriirinaysaa waxyaalaha aad rabtid inaad xasuusatid. Tusaale ahaan waxaad rabtaa 10kii shay oo aan hadaaye ka soo hadalnay inaad xasuusatid. Waxaad sawiranaysaa kafee yaal kaabada oo qaybi halkaas ku daadatay. Sidaas si la mid ah ayaa meelihii kale oo aad maskaxda ku haysay ugu xiriirinaysaa waxyaalaha aad rabtay inaad xasuusatid. Inkastoo aan la soo koobi karin oo ay badan yihiin qaababka ay adeegsadaan dadka ka qaybgala tartanada wax xifdiska oo ay ka mid yihiin labadan aan ka soo hadalnay, waxaan ku soo koobay ka hadlida labadooda kaliya maadaama ay adag tahay inaan kulligood soo wada qaato. Intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum.